Ugu horeyn, inta aanan bilaabin muuqaalka, aan ku weydiiyo su'aalo gaaban. Ma ku aragtaa shuban ama calool jileec ku soo laalaabta ilmahaaga 6 bilood ka yar? Ma ku aragtaa qufac ama neef-qabad joogto ah dhallaankaaga 6 bilood ka yar? Ma ku aragtaa xasaasiyad ama cuncun cunugaaga aan dhaafin 6 bilood? Ma isku aragtaa caano yari markaad nuujinayso dhallaankaaga? Ma ku aragtaa dhaga xanuun ama dhaga dilaac cunugaaga? Ma ku noqnoqotaa isbitaalka jirada dhallaankaaga dartiis? Haddii jawaabtaadu ay tahay haa, muuqaalkani waxa uu kaa caawinayaa daawada halka dhammaan su'aalahan. Assalaamu calaykum daawade. Isku soo noqod wanaagsan. Muddo badan oo ka maqnaa channelka waan idinka raali gelinayaa. Waxaa iska jiray hawlo adduun oo kala duwan, balse hadda dib ayaynu isugu soo noqonnay. Maanta muuqaalkeena waxaan kaga hadli doonaa caanaha ugu wanaagsan ee la siiyo ilmaha 6 bilood ka yar. Muuqaalkan waxa uu ku yimid codsigiina oo aan arkay. Waan idinkaga mahadcelinayaa fikirkiina saliimka ah. Ku soo dhawaada muuqaalka. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay channelka, fadlan nagu soo biir oo subscribe dheh. Asxaabtaadana la wadaag si iyaguna wax uga faa'iidaan. Marka aan ka hadlayno ilmaha 6 bilood ka yar, waxaa loo baahan yahay in ay niyadaada ay ku qoran tahay daryeel ka duwan ilmaha 6 bilood ka weyn. Aan ku hormarno quudinta ilmaha 6 bilood ka yar. Waxa kaliya ay u baahan yihiin ayaa ah caanaha naaska hooyada, oo aysan la xiriirsan wax kale oo la cabo, xitaa biyaha caadiga ah. In 6 bilood ee ugu horeysa kaliya dhallaanka la siiyo naaska hooyada waxay ka dhigan tahay in cunugaagu uu helayo faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin inuu helo nafaqo nooc kasta ah ee uu u baahan yahay cunugaagu, waxayna isugu jiraan nafaqooyinkaas borotiinno, fitamiinno iyo dufan oo dhammaantood ka qayb qaadanaya koritaanka ugu fiican ee dhallaankaagu uu heli lahaa. Sidoo kale, nuujinta 6 bilood ee hore ee ilmaha waxay ka helaan difaac jireed ka hortagaya noolayaasha ilma-aragtada ah ee loo yaqaan fayruska ama bakteeriyada, kuna keena ilmaha xanuunno kala duwan oo dhaawac u geysta. Waxa kale oo ay naasnuujintu ka hortagtaa xanuunnada kala ah neef-qabadka iyo xasaasiyadda oo aan hore uga soo hadalnay waxa keena iyaga. Haddii aad rabtid fiidiyowgaasna, fiiri description-ka hoose ee muuqaalka. Halkaas ayaan kuugu reebayaa. Naasnuujintu waxay hoos u dhigtaa sidoo kale xanuunnada dhagaha, xanuunnada saableyda ama sanbabada, iyo shubanka joogtada ah ee ku dhaca ilmaha. Waxaa intaa dheer in nuujinta ilmaha ay ka hortagto in cunugaagu uu noqdo mid miisaan aan loo baahnayn yeesha. Kaliya waxa uu noqonayaa mid lahaada miisaanka caafimaad ahaan ugu fiican dhallaankaas. Sidaasi si la mid ah, waxaa kordha ama siyaada waxa loo yaqaan IQ ama caqliga cunuga markii naaska sida saxda ah loo siiyo, iyadoon wax kale loogu darayn 6 bilood ee hore. Intaasi waa faa'iidooyinka ay dhallaanka u leedahay naasnuujintu. Laakiin waxaa jira faa'iidooyin ay hooyadu u leedahay inay naaska cunugeeda siiso ama naasnuujinta. Ugu horeyn, maadaama ay baxayso tamar, waxaa meeshaasi ku yaraanaya miisaanka hooyada ee markii ay uurka lahayd koray. Waxaana sidoo kale la soo daynayaa dhacaan la yiraahdo oxytocin oo ka qayb qaadanaya hooyada minkeeda inuu meeshiisii dhaqsi ku soo laabto. Sidaasi oo kale, waxaa yaraanaya dhiigga yimaada hooyada dhalmada kadib iyo kansarka ku dhaca naasaha iyo ugxaanta hooyada. Marka aan ka hadalno xagga qarashka iyo nadaafadda ilmaha iyo hooyada, waxa u wanaagsan naasnuujinta, maadaama basaasada iyo cinjirkaba ay u baahan yihiin nadiifin
iyo daryeel joogto ah. Caanaha naaska hooyada waxa ay maalmaha hore ka samaysan yihiin waxa loo yaqaan dambar. Waxa uuna taraa inuu dhiso dheefshiidka cunuga, una diyaariyo inuu sameeyo dheefshiid wanaagsan si looga fogaado dhibaato ku timaada cunuga. Waana waxa ugu wanaagsan ee lagu bilaabo dhallaanka yar marka uu dhashaba. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. Haddii aad wax ka faa'iiday, fadlan sii gudbi. Haddii aad su'aal qabtana dhanka comments-ka iigu reeb. Naguna soo biir oo subscribe dheh, gambaleelkana furo. Mahadsanid iyo muuqaalka noo xiga.